ra'yigayga ka cabiro oon ka sheego doodii lifeka loo soo daayey ee ay ku doodayeen saddexda murashax madaxweyne ee xisbiga kulmiye wadani iyo ucud mudane faysal cali waraabe mudane muuse biixi cabdi iyo mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro horta guud ahaan waxaan doonayaa inaan marka hore hambaliyeeyo ummadda reer somalilan meel kastoo joogto iyo saxaafaddii iyo labadii wariye ee sida quruxda badan ee xilkasnimada iyo mas-uuliyadda ku jirto u daadihinaya barnaamijka ee aan muujinayn inay qofna u xaglinayaan aad baan u hambalyaynaya aadna waxaan u hambalaynayaa dimuqraadiyadda somalilan ee kobacday ee maalin maalinta ka dambaysa waxayna ku soo kordhayaan adduunkuna waa sidaa waxay faranjiintu yidhaahdaan rooma maalin laguma dhisin marka waxaad mooddaa in aynu maalinba tallaabo qaadayno oo aynu gaadhayno meeshii hore kasii yar sarrayso ka qurux badan waayahay dooddu iyadoo ahayd dood qurux badan oo run ahaantii aad u xiiso badan oo yacni intii aan daawanayay xitaa aan dhibsanayay inaan iban xitaa meel u kaco haddana waxaan odhan karaa su'aalihii la weydiiyey oo ahaa infact su'aalo qaarkood ay very sensitive yihiin oo bilmatel marka lalahaa waxaad sheegtaa qofku kale ama kandidaadka kale wuxuu kaaga wanaagsan yahay maxaad ku khilaafsantay maxaad ku raacsantay waxa ay su'aalo aad sooran kartid de talentka qofka iyo maskaxdiisa iyo garashadiisa iyo aragtidiisa siyaasadeed iyo waayo aragnimadiisa dibadda u soo saaraysa waxa laakiin cajiib ahayd oo xalay maankayga xagal 180 leexiyey ninka la yidhaahdo faysal cali waraabe faysal cali waraabe xalay wuxuu muujiyey inuu oday yahay waa kow inuu sense of humor leeyahay qof marna serious noqon kara oo wax adagoo dhaba ka hadli kara wakhtiyada qaarna kaftami kara oo dadka ka saari kara attentionkan iyo culayskii faraha badnaa iyo xasaasiyaddii kulanka iyo goobtu ay lahayd oo ka qoslin kara farxad jawi farxadeed abuuri kara marna siyaasi rog cadaadiya oo bisil su'aalaha siyaasadda ku salaysan ee qaranka dhisidiisa siyaasadda arrimaha dabadda isdhexgalka bulshada wuxuu uga jawaabayay si dhiibli ah oo garanayso inay wax meelu yaallaan oo aqooni ku dheehan tahay istayjyada iyo sallaanka uu u marayo labadana kale way mala awaalayeen may xumayn oo iyaga laftooda way dadaalayeen laakiin they show a great lack of experience waxay muujiyeen in aanay siyaasadda weli u bislayn waxa cajiiba oo la yaab leh even xitaa kalsoonida faysal markuu fadhiyey waxaa qof isku kalsoon oo haybadi ka muuqato oo kalsooni ka muuqato oo aanay cadha ku jirin oonay cabsi ku jirin wuxuu ahaa very relax body languagekiisa qofka akhriyaa wuxuu arkayaa inuu ahaa qof deganaan fara badan iyo xasiloon fara badan iyo kalsooni fara badan ay ka muuqato aad baan uga mabsuuday si aan caadi ahayn baan uga mabsuuday marka dadku codkooda iyagaa xor u ah oo qofku codkiisa halku marinayo iyo cidduu siinayo isagaa xor u ah laakiin xalay faysal cali waraabe anigu waxaan ku qiyaasay micyaar kale oo aan hore ugu qiyaasin ummadda somaliland waxaan odhan lahaa oo aan fari lahaa haddii ay in wax iga dhegaysanayaan aynu jebinna waxay filanayaan dadka isu tirinaya inay ka tuwan yihiin faysal cali waraabe ama ay ka lacag badan yihiin ama ay ka tol badan yihiin exerciseka dimuqraadiyadeed ee aad leedihiin maanta dadka xaqa u yeeshay inay cunayaan nasiibka u yeeshay waxay awoodi karaan inay siday doonaan ka yeelaan qofka ay doonayaan faysal cali waraabe wuxuu inaga mudan yahay inaynu maanta u hiilino wuxuu si bablika u yidhi aniga tolkay waa la iibsaday wuxuu sheegay in dhaqaale looga badan yahay nina dowladda
asadkeedii dhaqaalaheedii iyo waxay hanti haysay uu sheegtay nina uu sheegtay inuu inkastoo hayb wadaag leeyihiin haddana uu dee ka tolbatay oo ka dhaqaalo batay haddii allaba kuruwi ka lacag batay markaa faysal cali waraabiyuu la hadlaya wuxuu la hadlayaa somalilan bulshada reer somaliland buu leeyahay anigu idinkaan idin ahay suldaan reeraha iigu ololeeya marihii qabiil aniga si toosa reeraha ula fadhiisto oo yidhahda faysal cali waraabe codkiis waxaasoo anigu markaa hadalku isagoo la dheeraan oo aanan ku fogaan waxaan qof kasta oo somalilandara kula talinayaa maanta haddii aad doonaysaan beri baa markii ilaahay ha u naxariistee ina xaaji ibraahim cigaal dhintay ayaa yurubtan joogay wakhtigaa laftigeeda nin aan somalilander ahayn baa noo sheekaya annagoo dhallinyaro fara badan oo somalilander ah wuxuu yidhi somaliland haddii ay maanta ka xishooto ninka la yidhaahdo daahir riyaalo kaahin oo aanay u qabyaaladayn oo waxa uu xaqa u leeyahay aanay dhaafin somaliland dawlad jirto oo hergashay oo socotay bay noqonaysaa haddii laakiin inta garabka lagu dhufto la duudsiyo waxa uu xaqa u leeyahay somaliland hakad bay gelaysaa oo hakad halisa bay gelaysaa ilaahay dadkii markaa wax garanayay talada gacanta ku hayay uu garowsiiyey waxaan aaminsanay in doorashada daahir riyaal la doortay ay ka mid ahayd waxyaabihii fayska quruxda badan u yeelay somaliland siyaasaddeeda arrimaha dibadda inay ka mid ahayd maanta marxaladdii oo kaleynu taagannahay stagekii baynu taagannahay faysal cali waraab bulshada reer somaliland buu la hadlay faysal wuu fududiyey waa been faysal wuu waalanyahay waa been wixii oo dhan xalay beeno wuxuu muujin yahay qof qalbi wanaagsan oo saaxiibtinimada qiimeeya oo ninkay gacansaar siyaasadeed yeeshaan meel fog la gaari karaa waxaanu markhaatiga ku furay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi inuu gacanta qabtay oo ka dhigay guddoomiyaha golaha wakiilada waayo xisbigiisu ka soo baxay waa fact waa xaqa jirta waxaa loo qiray in somaliland marxalado fara badan oo gacantaba laysula tegi lahaa uu isagu noqday hoygii nabadgelyada oo uu diiday inay fawdo iyo isdhexyaac u dhaco tanaasulla uu sameeyey kuwii markaa iyagu aaminsanaa inay wax diidi karaanna ganafka ku dhuftay miyaanu qofkaasoo kale inaga mudna inaynu abaalkiisa gudno oo aynu muujinno inaan waan kaa tol badanahay oo waan kaa dhaqaalo badanahay aanay shaqaynayn maalinta codka la bixinayo ummaddayda waxaan ku guubaabinaya oo iga daacada oo qalbiga ka soo gooday inay maanta faysal cali waraabe codka siiyaan aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu somaliland ha noolaato mujtamaceenu ha jiro guul iyo gobonnimo asalaamu calaykum